xog lama filaan ah ayaa waxaa laga helay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta safar 2 maalmood ah uga bilowday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar 2 maalmood ah waxa uu uga bilowday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, taasi oo maanta oo Khamiis ah ugu ambabaxay magaaladaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmi doonaa dhigiisa dalkaasi Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka Kenya, isagoo kala hadli doono arrimo la xiriira dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa horey waxa ay u sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isla markaana heshiis ku saabsan dib u fasaxidda qaadka ama jaadka oo la yeelan doono dhigiisa madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta, balse wararkaasi ayaa fila Soomaaliya ka aamustay. Bayaan ka soo baxay gudoomiyaha ganacsatada qaadka Kenya toddobaad ka hor ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasina uu kulan kula qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Kenya, isagoo kala hadli doono arrimo la xiriira fasaxitaanka qaadka, balse taas ayaa dib u dhacday. Warar kale oo la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono dalalka Kenya iyo Djibouti, isla markaana madaxweynayaasha dalalkaasi uu kala hadli doono xiriirka. Safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo magaalada Nairobi ayaa noqonaya kii afraad oo dibadda ah tan iyo markii madaxweynaha loo doortay 15 May. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmo kadib waxa uu buuxsamaya 60 cisho oo joogo fila Soomaaliya, iyadoo 12 cisho safar dibadda ah uu ku maqnaa. Tagitaankiisa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Nairobi ayaa bilow u noqonaya dib u soo nooleynta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo 2 sano ugu dambeeyay madmadow xoogan uu ku jiray, heer uu gaaray in safaaraduhu ay kala rartaan labada wadan tan iyo markii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Balse taas ayaa hadda u muuqata inay meesha ka baxayso oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu raadinayaa inuu dib u soo nooleeyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya